marka runtii waxyaalaha maanta rabnay inaan ka hadalno waxaa kamid ah maanta waxay ku beegan tahay 4 Abriil oo ayada qaramada midoobay u aasaastay maalinta dadka miinada ama maalinta miinada maaragtay waxyeeladeeda laga hadlo runtii jawiga Soomaaliya hadda ka jiro ma ahan jawi oo maaragtay fiican oo dadkan dhibaatooyinka qabo miinooyinka saacida sababtoo ah dadku waxay noqdeen dad maaragtay qaraxyadii dadka markay ku bateen dhibaatooyin badan ka soo gaareen marka dhaawacyadii dad badan naftooda ku waayay marka dadku waxay u baahan yihiin wax qabasho oo maaragtay muuqato haddii noqoto in la helo shaqooyin loo abuuro inay helaan agabka ku socon lahayn inay helaan maaragtay wax maaragtay daawooyin ay ka dhigtaan ama tasiilaad kale ka saacido marka hay'adaha u qaybsan qaramada midoobay marna ma Soomaaliya kamayna qaban in dadka miinooyinka ay waxyeeleeyaan ay u qabtaan maaragtay wax qabad sababtoo ah taargada ay saaran xoogga ay dadka maaragtay miinooyinka soo bixiyaan iyo waxyaalo saas ah runtii waxaana ka fiican bulshada runtii maanta waxaa la soconaa inay tahay maalin caalami ah adduunkana laga xuso laakiin anaga xaggeena waxay ka tahay maalin maaragtay madow sababtoo ah dad baa sameeyo maaragtay lacag intaas lagu baabi'iyo xalfad waxaa ka qiimo roon maaragtay dadkii oo waxqabad u baahnaa in wax loogu qabto runtii dhowr mar ku celcelinay hay'adaha qayb u qaybsan qaramada midoobay in dadkan waxqabad toos ah ay u baahan yihiin taasna runtii way dhagaaday badan ay ka muujiyeen dadka Soomaalida oo dawladda xaggeeda haddii yihiin iyo haddii marka maanta warkii oo qoon waxa ku baaqi lahayn in dadkan ay u baahan yihiin wax qabasho ay u baahneen maaragtay in xalfado iyo waxyaalo saas loo dhigo dadkan ay yihiin dad wax qabsan karo anigoo aamin xarigeeda waxaan halkan ka dhiibaya waxaan dareemay alxamdulillah anigoo naafada muqdisho ku nool kan walaalaheena ah dibadda jira dalka jooga intiiba ganacsataa rabbigay waa u dhiibay inti kala ilaahay intaan u iloobin hadalkeena la daryeelo aan u baahannahay iska maqal meel intaasoo sano ayaa ka isaabi kara aniga haddii aada idmo على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أنت اليمين ما أنت أسر بدن إن أنا حسوسته وأنا لا تحقليه وحنقص عليهن يعني إن تحقليه حفيظ على كتب لها وحنقصنا يجاوز وحنقصنا يقلبك أنقص عليهن ولا يلوحين كأسنينا إن النقلوب أدبر لبلا نبو قبطان ما دام أنه هينا ومدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله عبد الله حسن جميع ثلاثة برادة ذاتك نافذة أما ذاتك بايع قاس قوى هدف وانا في سبيلة فورم وقع ثلاثة يكون بيوين برادة ذاتك بايع قاس قوى أما ذاتك نافذة سيدي يقانا قيبوه ذكرة تمن واسي DPOs ذاتك ديسمبل كاو أديغا سكولات ذاتك دجولياشا سكولات ذاتك أرقلا إيه سكولات ذاتك جيركا دبعتها كقوى iyo eheladooda maanta waxaan halkan baaq u wajiraynaa annagoo ka qayb galayna munaasabadda xafladda 4 Abriil oo ah maalinta Victim Assistance Day loo iclaamiyay qaramada midoobay taasoo ah in dadka ay dhibaatooyinka gaarsiiyeen waxyaabaha qarxa iyo xabadaha waxaan halkan baaq u wajiraynaa hay'adda UNMAS iyo qaybaha kala duwan ee arrimahaas ku hool leh kana shaqeeyaan in ay ka qabtaan wax magaalada Muqdisho ama dalka Soomaaliya waxa ka jira urur aad u badan kuwa oo ka shaqeeya barashada iyo horumarinta iyo shaqo abuurka iyo daryeelka xuquuqdooda iyo noloshooda dadka naafada UNMAS tiirarka ay ku shaqeyso intiisa shanaad waxa ah Victim Assistance oo ah in la taageero